geliyo ubaxay bacayniyo meher lagu casuum waxay ahayd nolol ku soo bilaabatay saaxiibtinimo walaaltinimo wada shaqayn isfahan iyo sidoo kale xiriir soo jireen ah ugu dambeyn guushiisa la gaaray hambalyo waxaan hambalyo u dirayaa qaaliladan iyo saygeeda Raaga Cabdi ma kula tahay daawade inaad adiguna kaalintaada maqan tahay si aad kaalintaada u buuxiso fadlan qaybta commentiga ugu soo hambaliyay fiidiyogan like inoo saar si ay iyaguna ugu farxaan annagana aan ugu faraxno sidoo kalena nagu soo biir muuqaalkan marka aad daawato kadib page-ka soo follow garay sidoo kalena fiidiyogan share garay intaas kadib waxaan guda geli doonaa hambalyada iyo farxadda lamaanaha qaaliladan iyo sidoo kale Raaga Cabdi nolosha quruxda badan ee soo jiitamaysay waqti dheer xiriirka saameynta badan yeeshay ee ay dad badan hore u saadaalinayay inay mar uun isguursan doonaan lamaanahani ugu dambeynsa ay noloshoodu noqotay mid guulaysatay geedkii mirihiisa la gaarayna la gurtay وما هدليو ما للاقو فرحي مدنيو مروا مهركودي دعاي مرحبا يومي ذكتيس لهلا سعبي مشهد ودشو أروس وما هدليو ما للاقو فرحي مدنيو مروا مهركودي دعاي guur lagu nagaadiyo calaf waxaa helan nasiib leh waxa badanaa baraha bulshada la isla dhaxmaro warar aan kalsooni buuxda lagu qabin oo muujinayay guurka qaaliladan iyo Raaga Cabdi ugu dambeyn way soo gabagabantay doonta jaceylka ee qaaliladan iyo Raaga Cabdi imika waxay taagan tahay xilligii ay guran lahaayeen miraha jaceylkooda waxaana soo gabagabantay rajada ah dhismaha nolol qurux badan oo muddo dheer socotay iyada oo guusheeda imika la gaaray fanaaniin badan oo Soomaaliyeed wariyaal iyo dad kale oo baraha bulshada caanka ah ayaa u soo hambaliyay fanaanada qaaliladan iyo saygeeda Raaga Cabdi oo iyagu ugu dambeyn ku aqalgalay gudaha wadanka Kenya waxaana tan noqonaysaa mid kamid ah guulaha jacaylka ay lamaanayaashu gaaraan حاجي لو قفض بيش استحيي محاوة شيطان ناكتا الشيطان وماما يا أعوذ بالله تعالى كلاس متعنى waxa ay muddo jirayeen jacayl la jaara kii Qays iyo Layla balse guushiisa la gaaray waxaana imika xaflad aan caadi ahayn la filayaa inay iyagu uga dhacdo halka ay degan yihiin dad badan waxay hore u qabeen dareen ah in qaaliladan iyo Raaga Cabdi mar uu isguursan doonaan maadaama xanta baraha bulshada wareegaysay iyo xiriirkoodu ahaa kuwa aad isugu dhow imika waxay noqotay mid soo gabagabantay guulna ku soo dhamaatay daawada waxaan ka codsanayaa marka koowaad inaad qaaliladan iyo saygeeda cusub hambalyo tiraahdo aad qaybta commentiga ugu hambaliyayso balse daawade adiga oo qaaliladan u hambaliyay miyaad fiidiyogan inaad like saarto aad ku sharafto ilaawi kartaa waana sababta uu barnaamijkan u yahay mid xiiso badan aniguna aan idinkugu soo dooray inaan hambalyadan u soo diro lamaanahan nolosha iska doortay ee mid kamid ah guulaha noloshooda gaaray jaceylka jileenka jaceyl muddo dheer socday gabagabada nolosha mustaqbalka iyo guurka guusha laga gaaray imikaba waxay noqdeen kuwa soo ifbaxay inta badan waxay ahaayeen lamaano la isku xanto in ay yihiin kuwa isjecel ama isguursan doona balse waxaa jiray dad kale oo aad ugu dhawaa kuwaas oo iyagu ka soo horjeeday wararkaas qaarkoodna beeninayay imika waxaa soo dhamaatay wixii hore waxaana ay galeen nolol cusub iyo mustaqbal kale oo ifaya diyan isdoorta ehel ku taama aroskooda aqal la seesa diga aslan iyo kabad la unta ubaxdu doonana lagu daadiya allahi amaan waad istaahisha waxa u furantay wada dheer oo ay marideeda tahay markasta halka uu calafku kugu simo saameynta noloshuna ay saacadu ku siiso waxaana ay taagan yihiin heer kamid ah heerarka nolosha ee uu qof kasta ku taamo waana marka aad hesho qofka aad raadinaysay waxayse ila tahay dad badan inay aad ugu farxeen marka ay maqleen guurka qaaliladan iyo Raaga Cabdi uba khayr leesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adamaaligi arzaqnasi qaaliladan iyo Raaga Cabdi waxaan idinkaga tagayaa noqda kuwii isku waara ubad khayr qabna kala hela waxaan se idin leeyahay
raagu calaf iyo jacayl dhaba waxaa helan nasiib leh qaaliye adiguna waxaan ku leeyahay noqo gaari dumar faceedka roon gurigeeda dhaqataa xaajigeedana daryeesha daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaana leeyahay hambalyo daawade adiguna waxaan filayaa inaad u soo hambaliyaysa lamaanaha nolosha iska doortay mahadsanid